Maanta oo ah 1 bisha Luulyo waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegatay xornimada Soomaaliya. Maalintaasi oo ku astaysan maalintii Israaca labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Sidoo kale waa maalintii Koonfurta dalka gumeystihii Talyaaniga ay xorriyadda ka qaateen. Abwaan Cali Jaamac Cawaale Cali Dhoof oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed uuna adeer u yahay Maxamed Cawaale Liibaan oo ah ninkii hindisay nashqadda calanka Soomaaliya ayaa ka warramay 5 marxaladood oo xasaasi ah oo uu soo maray calanka dalkeena Soomaaliya. Calanka waxaa nashqadiisa la keenay sanadka markuu ahaa 1952 Oktoobar. Labadii sano ee xigtay dood adag ayaa ka jirtay taa oo qaramada midoobay taalay. balse sanadka markuu ahaa 1954 markii Cabdulaahi Ciise uu tagay qaramada midoobay ayaa la ogolaaday. Isla sanadkaasi 12 Oktoobar ayaa la arkay isaga oo suran fiisha Governo isaga oo u dhaxeeya calankii qaramada midoobay iyo kii gumeystihii Talyaaniga balse ka gaaban. Sanadka markuu ahaa 1956 markii dawladdii Cabdulaahi Ciise la dhisay waxaa lala simay calankii Talyaaniga iyo kii qaramada midoobay. 26 Juun 1960 waxaa la suray beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa isaga oo kaligiis ah waana markii la yiri kan nasiib kan nasaar. Ugu dambeyntii 1 Luulyo 1960 maanta oo kale isaga oo kaligiis ah ayaa xamar la suray. 5 marxaladood soo maray oo waliba laba sano u dhaxayso June iyo July ma ahan inta kale. 4 baa marka Soomaalidu inta badan sheegtaa mid ma taqaan saan u malaynayo. Horta calanka waxa naqshadiisa la keenay oo la arkay oo soo bandhigay 1952 Oktoobar. 52 ilaa 54 dood baa ka jirtay United Nations ku yaali. 1954 Cabdulaahi Ciise markuu UN ka tagay waa la ogolaaday. 1954 Oktoobar ayaa la arkay asagoo suran fiisha Governo oo u dhaxeeya calanka UN-ka iyo calanka Talyaaniga laakiin ka gaaban. 1956 dawladda Cabdulaahi Ciise markii la dhisay waxaa lala simay kii Talyaaniga iyo kii UN-ka. saddex ma tahay 1960 Juun waxaa la suray beerta xorriyadda ee Hargeysa waa asaga oo kaligiisa oo madax bannaan waa hameenka ay dhacaysa kaarsiibka nasaar. 1960 1 Luulyo Israaci labadii gobol iyo xorriyaddii koonfurtana isaga oo kaligiisa ayaa waxaa la suray fiisha Governo. Abwaanka ayaa sidoo kale ka sheekeeyay dhacdo ku qabsatay magaalada Kismaayo sanadkii 1996 taas oo ahayd in ay waayeen calan ay suraan mar ay u dabaaldegayeen munaasabadda 1 Luulyo balse ay ka heleen haweeney sanduuqeeda oo ugu jiray ilaa 1962 oo intaasi ku keedsanaysay sanduuqeeda. 96 anagoo joogno magaalada Kismaayo ayaa waxaan isku soo qaadnay inaanu sameeyno munaasabad yar. wadankuna waa kii dhibkii loogay ku jiray. barnaamijkii waan diyaarinay waa habaynay goor ay 4 saac habeenimo tahay oo 2 saac ka harsan tahayba waqtiga calanka la suri jiray yaa arrin mucjisa u dhacday. waxa la isweydiiyay horta calanka laftiisa yaa hayaba adigu ma haysa ma hayo yaa hayo waa magaalo bandow ah waxa weeye inta dhib iyo balaayaa jirta haddaan xataa maalin weyn turan lahayn mare buluug oo xidig iyo wax ku dhigsan lahaa. gabar baan noo timid waxay tiri maxaa jiro saasana calan aan keenay anina korneel garaasal dhijir Allah u naxariiso raacay gurigeedii baan tagnay sanduuq bay furtay waxay ka soo bixisay calanka Soomaalida oo go' leeg go' intaas oo kale isu jira. waxay tiri 1963 1 Luulyo bal 1963 iyo 96 kala jir waa 33 sano marlabaad bidcantii inta gelisay waxay soo bixisay karaawilka leegada. waxay tiri kanwa sanad buu ka horeeyay 1962 15 May
baan ku ridi waa garaawilka laagada daawada waxaan ku leeyahay xornimo wanaagsan hambalyo kowda luulyo ha iloobin inaad sheer garayso muuqaalka laagna aad saarto si dad badan oo Soomaaliyeed u gaaro muuqaalkani silid wixii la soo maray siriqii ma oodhigay kumaysigii sumaysnaa